kooxaha Kenya iyo Geeska Afrika ayaa kulan xiiso badan ku balansan garoonka Engineer Yariso Stadium ee magaalada Muqdisho. Kulanka dhexmari doona kooxaha Kenya iyo Geeska Afrika waxa ay ilaamiyay xiriirka kubadda cagta Soomaaliya iyadoo la ciyaari doono maalinta Khamiista ee toddobaadkan haddii Alle idmo. Kulankan dhexmaraya Khamiista kooxaha Kenya iyo Geeska Afrika ayaa ah mid lagu kala saari doono labadan kooxood kadib markii ay isku dhibcan noqdeen horyaalka heerka labaad ee kubadda cagta Soomaaliya. Qaadir Amiin Cali macalinka kooxda Geeska Afrika ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in kooxda uu keenay horyaalka heerka koowaad ee kubadda cagta Soomaaliya waxaanu yiri runtii sanadkan Serie B-da Geeska Afrika waxaan aad ugu faraxsanahay horta ciyaartoy oo aan junior ilaa up to now aan soo waday oo Serie A heerka ugu sareysa horyaalka Soomaaliya laga ciyaaray Serie A inaan keenay aad baan ugu faraxsanahay ciyaartoy junior oo inaan ka soo qaado ilaa iyo hadda heerka aan soo waday alxamdulillah ilaahay aan macnaha u mahad celinaya oo caafimaadkaasi waqtigaas siiyay Geeska Afrika waa koox weyn koox aad u weyn waaye qof walba qofka og aan macnaha ayaa ka sheekeyn kara aniga ka macallin ahaan waxaan macnaha isku dayay sanadkan in aan kooxda Serie A u soo baxsho waan u soo bixiyay wax yar ayaa noo harsan in macnaha koobka ku guuleysano ciyaartoyda iyo maamulka aad baan ugu mahad celinayaa ayagana dadaalka iyo waqtiga dheer ay sameeyeen waxa uu ahaa hadafkii macallin Qaadir Amiin Cali inuu kooxda Geeska Afrika u soo saaro heerka koowaad kana soo saaro heerka labaad waxa uu soo armaasi ka hadlaya uu yiri horta runtii aniga marka hore hadafkaygu wuxuu ahaa ciyaartoydan da'da yar in aan macnaha Serie A u soo bixiyo runtii waa ciyaartoy aad u da'da yar Serie A-gadan hadda maanta sanadkan oo imaan doona insha Allah aniga hadafkaygu wuxuu ahaa Serie B-da Geeska Afrika in Serie A u soo baxsho laakiin waxaan rajeynayaa haddii aan isla joogno kooxda Geeska Afrika maamulkooda sida qurux badan ila shaqeeyayna waxaan macnaha aan rajeynayaa insha Allah in ciyaartoy oo aniga aan ku soo darsan cause ciyaartoydan ayaga aan wax ka dhigay ayagaan wax iga dhigay laba jeerba kulankan dhexmari doona kooxaha Geeska Afrika iyo Kenya kooxda badisa maalinta Khamiista waxay hanan doontaa koobkii horyaalka heerka labaad ee Soomaaliya sidoo kalena waxay labada kooxoodba si toos ah ugu gudbayaan horyaalka heerka koowaad ee kubadda cagta Soomaaliya haddii Alle idmo. Axmed Taye Qaran wararka Malcab magaalada Hargeysa.